mahmaahi waa murti macno gaariyo ujeeddo leh milgadii afka hooyiyo muraayadii sooyaalkeena. mahmaahda aan maanta idiin soo xulay macno xeel dheer iyo miisaan culus bay leedahay. inta aanan horay u guda gelin murtida ama xigmadda aan maanta idiin soo xulay, ugu horeyn waxaan dhammaan idinka codsanayaa in aad rukumataan kanaalkeena oo aad saartaan calaamadda subscribe, sidoo kalena in aad la wadaagtaan asxaabtiina si aan idinkugu soo tabino barnaamijyo kale oo xiise leh. haddaba murtida aan maanta idiin soo xulay waa tan oo odhanaysa: afxumo gartaadana waa ay kaa xumaysaa, goluhuna waa uu kugu nacaa. aan ku celiyay, haddaba dhegaysta: afxumo gartaadana waa ay kaa xumaysaa, goluhuna wuu kugu nacaa. waa xigmad macno ahaan erayadeedu aad u fudud yihiin oo qof waliba uu fahmi karayo. uma baahna sharaxaad badan oo erayadeeda ah, sababta waxa ay ku cabiran tahayba waa luuqad sahlan oo qof waliba uu fahmi karo. oo waxay leedahay: hadalka xun gartii aad lahaydna waad ku weydaa, oo guddida iyo dadkii gartaada aad u bandhigatayna way kugu nacayaan oo waa lagugu dhibsanayaa hadalka xun. xigmaddaani waxaa jirta xigmad kale oo macnaynaysa oo leh: afxumo nabadna waa ay kaa kaxaysaa, colaadna waxba kaagama tarto. macnaha loola jeedana sida erayadaba ku cad waxa ay tahay in afxumadu ay dhib waxaanan ahayn iyo khasaaro aan laga helaynin, oo xitaa dantii aad lahayd, gartii aad lahayd iskaba dhaafay, xitaa nabadii aad ku jirtay bay afxumo kaa geynaysaa. sababta qofka caytamaa waa dadka uu caayay oo dhan ba uu cadow u yahay, xitaa naftiisii ayuu cadow ku yahay. sababta afxumadu waa cadow oo qofku caqligiisii bay cadow ku tahay. qofkii caytamana waxa uu meel uga dhacay sharafkiisii, waxa uu sidoo kale meel uga dhacay qofnimadiisii iyo dadnimadiisii. sababtoo afxumada lagumana ciil baxo, ceeb iyo fadeexadna waa laga qaadaa. afxumadu waa cadow, waxa ay dishaa sumcadda qofka isticmaalaa, oo dadka inta badani qofka aflagaadada aadka u isticmaala ma jeclo, oo sumcaddiisa bulshada dhexdeeda waa ay dhacdaa. waxay sidoo kale dishaa fahamka qofka, oo fahamkii furnaa ee qofka uu heli lahaa ayay afxumadu dhaawacaysaa. sababta qofka waxaa u sahlanaanaysa adeegsiga afxumada. waxay sidoo kale afxumadu dishaa horumarinta iyo kobcinta caqliga qofka iyo awoodiisii erey bixinta afka iyaba afxumadu waa ay dhaawacdaa. qofkii doorbidana waxa uu wehel ka dhigtay cadowgiisii. sababta afxumadu waa cadow, oo waxay cadow ku tahay qofkii isticmaalay. qofka afxumada caadaystana wuxuu tusaale u yahay in jahli, waxa uu tusaale u yahay dhaqan xumo, waxa uu tusaale u yahay wax weliba oo xun oo ay bulshada ka yaqiiqsato ama ay dhibsato ama la karaahiyeysto. marka iska daa afxumada oo iska ilaali afkaagana ka dhowr erayada xunxun iyo aflagaadada si aynan bulshaduna kuu karhin, adiguna dantaadii iyo mujtamaca dhexdiisi miisaankii aad ku lahayd aadan u luminin. haddii xitaa qofka uu yahay qof jaamacado ka baxay, aqoontiisuna ay lagu qiyaaso doctora ama PhD darajada ugu sareysa ee cilmiga, hadduu qofkaasi yahay qof af xun, bulshadu ma jecla. oo waxay caddaynaysaa in qofkaas aqoontii uu bartay iyo cilmigii aynan waxba u faa'iideynin. waa tii xikmaddii kale ee afka carabiga ay lahayd: alcilmu bilaa adab ka shajar bilaa thamar. cilmi aan edab lahayn waa geed aan miro wax naafacaad ah aan faa'iido lahayn oo laga maciinsado. marka xitaa qofka jaamacada hadduu ka baxay
laakiin uu afxumo caadaysto waxaa calaamad ay u tahay in aqoontii uu xifdiyey macnaheedii inuunan dhadhansan. waxaad mararka qaar maqlaysaa dad ku dhahaya caybaa cay kaa reebta. xaqiiqdii sax ma aha, waa fakar khaldan. waxa aflagaado afkaaga looga ciilbaxaa iyaduna sax ma aha, oo qofka isticmaalaa afxumada waxa uu wehelsaday, uu maciinsaday cadowgiisa. waa tii xikmadii kale ay lahayd, af baa la xukumaa ee uur lama xukumo, oo macnaheedu ay ka dhigan tahay qofka aflagaadada ugu jawaabaya waxa uu caddeeyey waxa isa qofkaasi ku jira, waxa uu caddeeyey calooshiisa, waxa ku jira uurkiisa. haddii uurkiisu ay afxumo iyo dhaqan xumo iswata iyo aflagaado un ay ka buuxdo, waxba ma dhaamo kii aflagaadeeyey. ee xaqiiqdii afxumo waxaa looga ciilbaxaa oo looga adkaadaa waa aamusnaan. afxumo istaahilkeedu waa aamusnaan. ay xikmada kale u leedahay af baa la xukumaa ee uur lama xukumo, waxay macno ahaanna siinaysaa qofka in uu ka mas-uul yahay oo keliya waxa afkiisa ka soo baxaa, ee uunan mas-uul ka ahayn qofka kale hadalka uu yidhaahdo. hadal xun hadduu qof kugu yidhaahdo, adigu ka mas-uul noqo afkaaga waxa ka soo baxayo iyo jawaabta aad qofkaasi u celinaysid. haddii aadan kari karaynin inaad u celiso jawaab qurux badan, akhlaaqaysan, luuqad edeb iyo ixtiraam ku dhisan aadan u celin karin, haddaba iska aamus. aamusnaan ayaa lagu gowracaa afxumo. aamusnaan ayaa lagu gowracaa. haddii aadan heli karaynin erayo akhlaaqaysan inaad ku jawaabtid, ka aamus, oo abaalkeedu waa aamusnaane. afxumo abaalkeeda waa aamusnaane. wax aadan ahayn dadka kuguma sheegi karaan, oo haddii xitaa ay ku aflagaadeeyaan, ay kugu sheegaan wax aadan ahayn, uma baahnid inaad u jawaabtid. ka aamus. waxaad ku dishay aamusnaan oo aad afxumadii uga adkaanaysaa, ama luuqad akhlaaqaysan ugu jawaab, oo afkooda wixii ay kugu yidhaahdeen ma noqonaysid, ee waxa aad tahay oo keliya waxa aad tahay iyo wixii afkaaga ka soo baxo unbaad adigana tahay. waxaan wada ognahay dadka afxumada caadaystaa in ay ka tagaan xishoodka iyo akhlaaqda. in laga tagaa xishoodka iyo akhlaaqduna waxa ay qeyb weyn ka tahay dhaqan xumada bani aadamka ay jeclayn ee la karaahiyeysto. dadka oo dhan ayaa kugu nacaya, ee ka dhowr afkaaga. dantii aad lahayd xitaa haddii aad u socotay wanaag, afxumadu way kaa xumaynaysaa, ee ka dhowr afkaaga. ka adkow afkaaga, ka dhowr afxumada. waa barnaamijkii murtida deegaan, iyo anigoo ah cabdifataax baana caymuun oo idinkaga tegayaa kulanti dambe oo xiise leh iyo